السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما waxaan salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan walaalayaal waan salaamay waan nastaaxa samafale waxaan la hadlayaa again see la yahay waan idin basaase bulsho yahay ma nabadba nastaaxo samafale galabta waxaan rabaa ما شاء الله هرت وان سلامي walaalayaal waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalihii subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ka ii saaray barnaamijyadayda ayaan rabaa inaan u mahad celiyo waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan marka rabaa insha allahu haddana waxaan rabaa inaad sii wadaan subscribe-ka siiba subscribe-ka waxaa moodaa markaan fiirshay filimadii bahaladii barnaamijyadii inta fiirsatay iyo inta subscribe-ka saartay shaqo isku ma leh inta fiirsataa badan runtii waan idin mahad celinayaa laakiin subscribe-ka waxaa laga yaabaa inaysan garanayn waxaad samaynaysaan meesha markaad fiirsanaysaan barnaamijka meesha midigta calaamadda gaduudan ayaad ku dhifanaysaan marka hore horta meesha suulka midna waa saas midna waa saas midka saas ha ku dhifanaysaan waxaad dhahaysaan subscribe calaamadda gaduudan midigta kaa qabanaysa aad ku dhifanaysaa gambaleelka haddana ku dhifanaysaa marka maasha allah tabaaraka allah waan idin mahad celinayaa barnaamijkii waa kala kacay waa socdaa waa maasha allah waad mahadsantihiin thank you very much waxaan rabaa galabtay barnaamijka kolley wuxuu ku saabsan yahay waa tii barnaamijyadayda horumarka ku saabsanaayeen horumari naftaada horumari walaalka dhankay doontaba ahaato galabta waxaan hadaa barnaamij yar baan hayaa oo ah horumari naftaada oo xagga ah in yar buu moodaa inuu ka duwan yahay lawaalka isla meeshii qolaa ila soo xiriirtay gabdho asxaab aan nahay iyo gabdho igala soo xiriiray social mediaha ayaa waxay nagu yiraahdeen nasteexoy arrin yar baan u taag la'anahay waxaan rabnaa inaad maaragtay haddii dee khibradahaaga iyo waaragnimadaada iyo bal inaad nooga faa'iidayso waan isku faa'iidayno arrintaas waxay tahay waxay yiraahdeen xagga qoysaska runtii siiba xagga jacaylka ay dhaheen marka runtii aniga marka hadda ka hor xataa jacaylka layga warsaday dhowr jeer oo intaad iga waraysteen dabcan jacaylku qoloba sibay u taqaanaa laakiin anigu runtii waxyaabo badan baan jacaylka u aqaan jacayl horta waa iska jacayl oo maaragtay kolley marka hadda la yiraahdo kaleeto jacayl waa maxay markii aniga hadda la weydiiyo ama aan maaragtay walaalahay rabo isoo weydiistay inaan la taliyo dadku isku si ma yaqaano laakiin sida anigu aan u aqaano markaan hadda fiirsho waxaan leeyahay jacayl waxaa weeyaan wax kastoo la jeclaado waa jacayl horta waa wax dareen qofka ku dhalsho weeyaan ama qofkuba leeyahay dareenkaasaa marka qofku wuxuu samaynayaa wuxuu ku jeclaanayaa waxbuu ku jeclaanayaa waxay doonaan ba ahaadaan ama waxay noqon kartaa lamaano isjecel ama waxay noqon kartaa walaalo isjecel ama waxay noqon kartaa saaxiibo isjecel ama waxay noqon kartaa shay kaleeto oo ama dhar ama wax unaad jeceshahay dad baa safarada jecel marka wax kastoo la jecel yahay anu waxaan u arkaa inay jacayl tahay waana dareen jacaylna waa dareenkaasa marka wuxuu ku tusinaa inaad wax jeclaato marka wax kastoo jeclaataana waxbaan jeclahay weeyaan maxaa marka haddii aan fiirino dhinaca runtii haddii la yidhaha qoysaskoo kaleeto runtii horta anu waxaan dhihi lahaa jacaylku waa 3 nooc baan u dhigi lahaa 3daan nooc iga raali ahaad mara yaroo qafiifaan soo qaato bidbidas marka waxaan isleeyahay waxbaa kaa qaldan baan isleeyahay marka jacaylka anu waxaan u qaatay ama aan u dhigi lahaa 3 nooc baan u dhigi lahaa nooc waxaa weeyaan haddaan ka soo qaadno qoysas dadka waxaa weeyaan jacaylka labada qof dhex maraba haddaan ka soo qaadno waa sida aniga aragtidayda ayaan rabaa inaan uga tala bixiyo walaalahay hadday soo gaarto arrintaasi kow waxaa jira jacayl qofka marka ugu horeysa
aad dareento qof aada weligaa arag ama aada maqal inaad markaad aragto in aad wax dareento nacam wax kaaga bidaan taas waxaa la yidhahdaa xataa englishku waxay yidhaahdaan the love one swedishkuna waxay yidhahdaan first ögonblick waa marka kugu horreyso waxa aad arkayso weeyaan qof marka waxaa jira markaad aragta aad naxayso aad leedahay ow qofkan horey miyaan aqoon jira muxuu ahaa waa bismillah qofkan muxuu iga dhex baxay camal yaa dabcan waa jacayl ka mid ah mid kale oo waxaa jira runtii qofku kaa kasbanaayo oo labada qof iska kasbanayaan qofaa kusoo xiriirinaya wax badan kugu soo noqnoqonaya dabcan ama aad ku noqnoqonaysaa dabcan qof baa bilaaba arrinta marka runtii qofku markuu soo noqnoqdo oo qofka soo waco oo soo xiriiriyo oo la soo hadla mar kasta oo xiisaynayo oo waxbaa kaa maqan isleeyahay oo qofka aad iyo aad u danaynayo waxaan dhihi karaa qofkaas somehow jacayl baa haya marka haddii qofka marka sida looga kasbado dabcan halkaa jacayl baa ka dhalanaya mid la kasbaday waayo qofkii iskaa baray ama aad bartay ama maaragtay ku bartay ama maaragtay runtii lagaa kasbado haddii aan sidaas u dhigno lagaa kasbado waa ood qofkii ku jeclaata dabeecadihiisa waxtarkiisa waxsiintiisa hadalladiisa caawintiisa waxqabadkiisa adiga uu kuu qabanaayo qof daacad ah runtii waad jeclaan kartaa qofka markuu sidaas jacayl saas ka dhashaana waa jiraan laakiin haddii aan la kaftamo bulshada Soomaaliyeed walaalahay hadda jacaylka waxaa moodaa dadka inay maaragtay ay wax kalaba ka dhigeen qofa arkaysa ama qofa social media kala soo xiriiraya wuxuu ku leeyahay macaan ii waran xabiibi ii waran qalbi ii waran qaali ii waran marka runtii aan waxaan arkaa dabcan waa jacayl la wareershay ama kaas jacayl uma arko haddaan la taliyo walaalahay ama aan isla talino waxaan dhihi karaa kaas anu jacayl uma aqaano waa somehow waa jacayl la wareerinayo magaciisa lagu cayaaraayo maxay ahayto macnihiisa la dilaayo maxay ahayto nacam meel baa looga dhacan dhihi karaa jacaylkii markii saas qof aad aqoon ku yiraahdo macaan ama aad tiraahdo macaan ama dabcan anu macaan waxaan arki karaa wixii la dhadhansho un baan macaan u aqaana qaali waxaan u aqaana qof wixii markay qaali kugu noqdaan oo qofkii runtii uu qaali kula noqdo laakiin qof ay kugu horeyso markaas ama maxay ahayto haddaad tiraahdo qaaliyow macaanow kaasoo waa dabcan waa wax la wareerinayo marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed hadda ama dadka hadda jacaylka ku cayaaraya jacaylka ciyaarta ka daay ma garateen taas waa mid haddii marka aniga aan talin lahaa oo la dhihi lahaa maxaad nasteexo jecesha horta anu waxaan dhihi lahaa naftaada jeclow qof walbo Soomaaliyeed naftaada jeclow aduu kalsooni isku qab aduu isjeclow markaad isjeclaato waxaad isla jeclaanaysaa wax macaan baad isla jeclaanaysaa meel fiican baad isla jeclaanaysaa ilaa iyo xad wixii tabartaada isjeclow marka adigu isjeclaato oo kalsoonidaadu ay 100% noqoto ayaad qof kala jeclaan kartaa ama aad qof kala xusheey kartaa next waxaad jeclaan kartaa qofku markii aad aragto inuu yahay qof adiga ku danaynayo ku intereseynaya ku raba kugu soo noqnoqday hadal macaan war macaan wax macaan dabcan waad qofka waad jeclaan karaysaa kaas kalena waan aaminsanahay oo qofka markaad aragto dabcan waxbaad ka dhex arkaysaa qofkii ma ogtay markaad aragto waaba naxaysaaba dad waxaa jira markii la arko la naxo la yidhaha wow who is this person qofkaas qofkee waay maasha allah muxuu ahaa qofkaas dabcan waxbaa kaaga bidaaya kaasna waan aaminsanahay waxaan kaloo aaminsanahay in jacayl jirana waan aaminsanahay laakiin haddii aan yara kaftamo waxaad moodaa dadka hadda jooga jacaylkii inayba absolute inay dhinac marsan yihiin waayo qofku markuu kugu bilaabo asagoon ku aqoon xabiibi macaan jacaylkayga qalbigayga gacaliso qaaliyo waxa waaye adna aad la wado tiraahdo waaw oo dabcan waxa jacaylkaas wuxuu u badan yahay in aan
uusan yeelan wax maaragta macnaa yeelan oo waxa la geedkii orod lagu fulo orod baa looga soo degaa mid kalena waan aaminsanahay runtii dadku hadday istamcaan ama maaragta isjeclaadaan ama isdoonaan inaan waqti badan la isku dhumin oo qofka dumarka iyo qofka ragga ahi hadday is arkaan oo heshiiyaan oo dabcan dareen iska gal isku raaco ama israbaan inaysan waqti badan iska dhuminna waan qabaa oo la isguursado runtii guurka waa la isku jeclaan karaa anoo jacaylka dhabtaa waxaan ba u aqaanaa markii labada qof isguursadaan jacaylka ka dhasha ayaan jacayl u aqaanaa kow maxay ahaytoy waxaan kusoo gabangabeynayaa in yaroo waanaa oo tala ah oo aan siinahayo wiilasha iyo gabdhahaba runtii gabdhaha hadda aniga ila soo xiriiray waxay u muuqdeen gabdho la lugooyey walow ragguna ay yidhaahdaan gabdhaha na lugooya laakiin waayaan dambe waxaa badatay gabdhaha eed sheeganaya oo runtii ragga ka eed sheeganaya waxay u badan tahay gabdho inta caruur badan laga dhalay ilmo badan laga dhalay ama ay wada dhaleen looga dhaqaaqaayo waxaa badatay gabdho inta jacayl lagu abuuro oo cirkaas looga soo dhaco xabiibiyey qaaliyey macaaney markaas yaacyaay waa cirkaas la isla maraayaa dhexda markay maraysaa looga siibanaya mid kale la arkaya markaasay waxay leedahay allah kuwa waxaa jira marka hore inta cirka la isla maro la isguursado oo jacaylka la isku soo galo ayay markay ayaan joogaan ayay arrintii sidii ma noqonayso markaas waxay bilaabaysaa calaacal maxaa dhacay ninkii telefoonka ma qabanaayo ninkii waa isbedelay ninkii saas waaye dhadhadhadhadha maxaa dhacay ma ii xiisahay ninka miyaa iima xiisan miyaa macaan hadday doontaa waxay ku leeyihiin maya ninka waa la soo jiitaayo hadallada loo macaaneeya aniga taas ma qabo because inaad hadalka macaanayso oo wax soo jiiddo waxa ka wanaagsan qofka inuu kuu soo jeedaa ka wanaagsan qofka hadduusan kuu soo jeedin inaad wax soo jiidi kartaan uma qabo runtii qofku waxaad ka arki kartaa inuu ku rabo inuu asaga ay ka timaado rabitankuna ka yimaado waxaad jiidi kartaa ma jirto waa gabdhahan taas dumarkay ku socotaa wax aad jiidi kartaan ma jirto qofku hadduusan ku rabin runtii oo asaga aysan ka imaan rabitaanka iyo jacaylku aniga in wax la jiidi karo ma qabo marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha horta kalsooni buuxda isku qaba naftiina jeclaada idinku isu soo saara idinku hays dhibinina hays lugoynina qofka walaalkay hadduu ku rabo asaga imaanayo hadduu imaan waayana dee awalba qofaan soo socon yaa inaad wax jiidi karto u malayn maayo waa gabdhaha Soomaaliyeed wiilka ku rabo wanaagso hayso ha iska xumaynin rag wanaagsan baa kale jira ragga walaalahayna waxaan kula talinayaa runtii inaysan gabdhaha xumayn oo ilaahay uga cabsadaan waayo dumar la'aan ma joogi karaan dumar waa kii horta sida dunidaba aabahood baa dabcan aabo u yahay laakiin dunidaba tii ku keentay weeyaan 9 bilood bay caloosha kugu sitay hooyadu markay xanuunkii umusha aad soo dhaaftay haddana naas way ku siisay haddana way ku korisay maxay ahaytoy ilaa aad ka aroosto ama ka weynaato ayay ku soo korinaysay walaal baad leedahay intaas laga yaabo inay ku soo caawisay habar yaraa leedahay ayeeyooyin baa leedahay eedooyin baa leedahay ka sokow gabar baad dhalaysaa ama aad gabar baad dhali doontaa ta saddexaad waxa waayaan dumar la'aantaas ma joogi kartaa naaguna dabcan ma joogi karaan laakiin runtii markaan ka soo qaadno aan hadda tacadiyaasha ragga laga tirsanaayo markaan u fiirino naag la'aan ma joogi kartaa waxa waaye ninka raggaahi hadduusan dumar ku tiirsanayn si wuxuu yahay waa la garan karaa qofkii sidaas ahaa inaad marka ilaahay uga cabsan weydaan oo aad been u sheegtaan oo aad ku ciyaartaan oo hadba inaad mid been u sheegtaan ayaa macaanay gacaliso xabiibi dhadhadhadha waxaas wax soconaya maaha waxaan ogaataan haddaad gabdhaha lugoysaan inaad mid idin lugoysa arki doontaa mideeda kale arrin waxaa jira baryahan si aad iyo aad u soo waalatay oo rabo inaan kala hadlo walaalaha Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed siba dhalinyarada waxay sameynayaan waxa leeyahay single mother rabnaa yaa okay
what happened maxaa ka rabtaa I think waxaan dareensanahay in dhaqaale ka galeen single mother yaa marka waxaan leeyahay deeqda rabbi baa baxsha wax aad naa ka raadisay ama aad qof kaloo kula mida ka raadisay I don't think so inaad ku qaboobayso haddaad xataa beryo u saxsaaxato dabcan qofku way xisaabin doontaa marka waxa weeyaan nin ragana wuxuu nin raga ku yahay nin raga loogu baxshay waa inuu asagu dumarkiisa xanaanaysto wax ragaysto oo masruuf siisto oo maxay hayto dhar siisto waxa la masruuf iyo magaad iyo marasho waan maqli jiray ma ogtahay haddii ninku inta la imaan waayo raganimadiisa ma soconayso inuu haddana ku faano nin ragahaan ahay inta naagti single motherka intuu xoolo ka soo raadiyo oo maxay ahayto ay istiraahdo okay miskiinkaanayto ama ninkan runtiis way ku jecel yahay oo ayaan ka naqaysto kulli qofku is xisaabin doontaa ma ogtahay de marka raganimada maba ku qiraysa waayo nin iyada markasta dabcan waxa ka soo raadiyo inaad taa way ku jeedaa ma ogtahay marka walaalahay waxaan kula talinayaa single mother xataa hadday tahay marashiyo masruuf iyo magaad baa laga rabaa soo moog haddaad la bixi weydana dee in adeer meesha maxaa yaalla raganimadaadina waxay noqonaysaa waa isdhimaysaa mana lagu sii hayn doono wax weynoo saasana ma ka heli doontid waayo qofkii way xisaabin doontaa ma garata marka intaasna waa maaragta taladii wiilashii gabdhaha markaad ishukansanaysaan sheekaysta reer baa la dhisayaa reerka markaad dhisaysaan waa inaad iswarsataan si fiican u hadashaan wax isla meel dhigtaan baleen samaysataan baleenkaasna sheekada kaleeto loo yidhaahdo naag maxay ahayd been baa lagu soo xirogeliya runna waa lagu dhaqaa waxaas waa laga tegey qarniga lagu jira lama joogo saaxiibayaal gabadha markaa shukaansanaysaa runta u sheeg waxaad leedahay walaalay annagu saas iyo saas iyo saas iyo saasaan ahay gabadhuna soo kale runta ha sheegto markii la isku yimaado baleenka noocaasa ha lagu dhaqmo ubadka ha la korsado waxaad arkaysaa rag baa dumar ilmo dhalahaya iskaga dhaqaaqaya wax badan baan aragnay intuu ilmo dhalay ilmihiisa ka tegay hadhow markay koreen buu wuxuu ku leeyahay aabbaan ku ahay aabe war aabbe noomatiida naga tag bay leeyihin wax badan baan hadda waddamadan yurub ku aragnay ilmuhu haddaadan soo korsan aabe ma oran karaysid waxay ku leeyihiin raalli ahow bay ku leeyihin maxaad marka u dhashay oo ku dhimatay oo u dhalaysay marka horeba haddaada ilmahaaga korsanayn oo aadan la dhimanayn oo aadan isbarayn ilmihii mideeda kale ilmayowgii laga tegay aabbayaashu ka tageen aad iyo aad baan uga xunnahay waxaa weeyaan waa ilmaha islaynahaya waa ilmaha isdilahaya waa ilmaha finish noqday waay ilmuhu waxay u baahan yihiin wax roodal model la yidhahdo waxay ku daydaan qofay ku daydaan bay rabaan hadday marka aabbihii kaalintiisii la waayo ilmuhu cid ay wax tarayaan male hadda waddamadan annaga aan joogno yurub ama america ama ingiriiska meel kastaba ahaato ilmihii waxaa waaye nimankii intay waddamadii yimaadeen ayay hooyadii isfahmi waayeen sababtana waxaan laisku fahmaya waxay tahay hooyadii markii awal hooyo waxay dabcan hooyooyinka waa loo shaqayn jiray guryahay joogi jireen aabbayaashaa shaqayn jiray inta markii la yimaado waddamada dibadaha waxaa leeyahay xaajiya shaqayso lagaama yeelahayo odaga iisoo shaqaynaya gurigaan joogahaya neba ma lagaa yeelahayo shaqaysaa leeyahay gabadhii markay subaxii ka lahdo ama iskool u ka lahdo ama ay shaqo u ka lahdo ama ilmihii qaar iskuulkii geyso qaar xanaano geyso qaar xanuunsan yihiin oo dhakhtar geyso odaygii waxaa laga inuu yidhaahdo anuma naag baan markaan guri iyo xaaqayo ama guri ka shaqaynayo ama aan ilma haynaayo ama aan ilma sii sidahayo naag miyaan ahay nacam marka dhibaatadii waxay tahay ninkii hadduusa gabadhii la shaqayn oo uusa kaalintiisii qaadan reerkaas odaygi waxa weeye wuu iska dhex waayahayaa meeshii wuxuu iska dhex waayahayaa meeshii odaygii dee mar kastaba cuntada loo karinaayo ismoodayaa because wayba karin lahayd laakiin waqtigii baa diiday marka meesha iska dhex arki waayo wuu iskaga tegaya afriku ama iska aadhaya ama mid kaleeto cusub buu aadhaya laakiin tii cusbeed laftigeedii ayadoona ilmay dhalaysaa wayna xisaabtamaan baa la rabaa ilmuhuna waa hadiyadaha ilaahay bixiya waxyaabaha ugu wanaagsan weeyaan waxa ilaahay ku siiyey haddaadan wanaagsan meel kastoo tagtaba kulli waxaad ku dhalaysaa marka ilmihii in la koriyo haddiiba labadii qof ilaahay isku calfo oo isguursadaan inay ilmahoodii korsadaan ayagii iska naxaan mideeda kale walaalahay ragga waxaan kaloo u sheegayaa gabdhaha haddaad doonaysaan inay idiin baari noqdaan
idin haystaan maaragta idin xanaaneeyaan gabdhaha sidii waagii horeba gabadha wax wal dahab baa loo gadi jiray dhar baa loo gadi jiray hadiyadaa loo siin jiray ciddooda lacag baa la siin jiray gabadha waxbaa la siin jiray ma garatay marka haddii saaxiibayaalow ay idinkaga dhigto silgan maadan idinkaga dhigto waxaa waaye ma fiicna marka haddii ilaahay yidhaahdo waxaa jirtay tix yaroo hadda iskuma soo daweyna igu soo dhacday oo aan beri ka tiriyey soomaalida iyo dhibaatada waddankii nagu dhacday iyo midda nagu haysata xataa wax yar hadda aan tiriyo waxay ahayd soomaalidii dagaashay markaan soo bilaabo hadda aad uma xasuusin laakiin kelmadaan ka xasuustaa waxaan ka xasuustaa inaan idhi qabqabiliye dagaal oogayaal qaxiye duulkiiye markay qiiqday nabaddii markay qoysba qoys cunay qiiqday nabaddiiye waataan qaxootiga ku nahay qaaradaha dunida waa tii badaha laysku quban qoysna noo harine waa tii qawaariis la yidhi qeyr dadkeenniiye intaa markaan xoogaa yar intaasaan ka xasuustaa haddana waxaa soo xasuustay wixii qurbaha iyo yurubka iyo dhibaatada nagu dhacay waxaan ku yidhi qurbahaan usoo dhoofnay baan lagu qaboobayne qaaradaha haddaan dhaafnay oo dhoofna wada keenay qoon kale haddaan darisnay oon qarash ka soo doonnay dhaxantii iyo qaboobaha haddaan qowla la caddaanay qoysyada raggii biili jiray qulubla weeyaane dumarkii la qaadqaadi jiray qayle laga taagiye khasaarada waxaa noogu wacan kala qornaan weeye qabqab dhaafay baa nagu dhiciyo qoys la kala taagay dhadig iyo labood wax isma dhaantaane lax dhukani abaar moog ayaa tahay dhammaantiine dhallaankeennii waxay dhuuqayaan xabag iyo dhuunkaale xabsiyada waxaa lagu dhuraa waa dhasheenniiye dhambaallada waxaa lagu qoraa dhallinta Soomaali marka waxaa weeye walaalayaal saddex ayaan kusoo gabagabeynayaa first markaa iskukansanaysaan runta isku sheega midda labaad jacaylka qalad ha ka fahmanina midda saddexaadna gabdho yahow aqalle guryihiina midda kale inkastoo ay ragguna yidhaahdaan gabdhihii naagihii waa kabreeno markay Yurub yimaadeen ama dibadaha yimaadeen way ka tageen naaganimada way ka tageen laakiin anigu waxaan isleeyahay waa duruufta ayaa keenaysa marka waxaan kusoo gabagabeynaa gabdho yahow iyo wiilal yahow haddii ilaahay ubad idin siiyo ubadkiina xanaanaysta idinkuna is xanaaneeya haddii idna is haysan doono isku qanacsanayna walaayaalow haba is guursanina sidaas ayaan uga baxayaa waxaan leeyahay ammaano allah nooli kulantay